weydiistay magdhow xilli ay isaga soo hareen koobka adduunka. madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee dalka Morocco Fawzi Lakjaa ayaa meel fagaaro ah wax looga weydiiyey qaladaadka laga galay xulkiisa intii ay ku jireen garoomada dalka Ruushia. Royal Moroccan Football Federation RMFF mas'uulka ugu sarreeya ee Lakjaa ayaa soo taxay qaladaad badan oo xulkiisa laga galay sida oo isaga dareensan yahay, waxaana madaxweynaha FIFA Infantino uu ka dalbaday in magdhow laga siiyo cadaalad daradii lagu sameeyey xulkiisa. warqad ka soo baxday xiriirka RMF oo la soo dhigay Twitter-ka ayuu Lakjaa ku sheegay, waxaan rajaynayaa in FIFA ay ka jawaab celinayso cabashadeenna ku aadan cadaalad daradii lagu sameeyey ciyaartooydeenna xulka Morocco iyo qaladaadkii garsoorayaasha ay nooga soo saareen koobka adduunka heerkiisa gurubyada, ayuu Lakjaa ku nuucnuucsaday. madaxweynaha xiriirka Morocco ayaa si gaar ah ugu nuucnuucsaday in xulkiisa la jabiyey markii ay la ciyaareen xulka Portugal, waxaana uu hoosta ka xariiqay in si shaki la'aan ah looga eexday ciyaartooydiisa sida uu hadalka u dhigay. xulka qaranka ee Morocco ayaa booska ugu hooseeya ka galay gruubka B ee koobka adduunka, iyagoo khasaaro kala kulmay Iiraan iyo Portugal, halka ay barbaro la galeen xulka qaranka Spain.